Kani waa Yunis Mahad Maxamed ku dhashay degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir. Ku dhalashadii Yunis uu ku dhashay degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir kadib intaasi waxa uu sii dheereed in Yunis uu ku soo barbaaray waqti iyo waayo wacan uu ku soo qaatay degmada Daynile ee gobolka Banaadir. intii Yunis uu ku sugnaa degmada Daynile waxa uu ku biiray dugsiga Qur'aanka Kariimka isagoo ka dhameeyay Qur'aanka Kariimka. Yunis waxa uu ku sugnaa degmada Daynile in badan ha yeeshee wuxuu dib ugu soo laabtay degmadii uu ku dhashay ee Warta Nabadda. Yunis intii Warta Nabadda ku sugnaa waxa uu suurto gashay inuu ku biiro iskuul ku yaala degmada Warta Nabadda gaar ahaan xaafadda Xamar Jadiid. iskuulka oo magaciisa la dhihi jiray wilana shaqeeya Somali Primary and Secondary School. intaasi kadib Yunis waxa uu suurto gashay inuu dhameeyo iskuulka misna uu ku biiro jaamacad kamid ah jaamacadaha ku yaala caasimadda Muqdisho. muddo Yunis markuu jaamacadda dhiganayay kadib safar waxa uu soo baxay wadanka Kenya halkaa uu u safray. hadda Yunis wuxuu ku sugan yahay degmada Ayraahday magaalada Nairobi ee wadanka Kenya. Yunis dhanka naanaysaha markaan ka fiirino waxa uu leeyahay dhowr naanays. qaar kamid ah naanaysyadaas waxa uu bixiyay saaxiibadii kuwa macallimiintii wax soo baray. Yunis wuxuu ahaa qof aad u furfuran, macallimiintii iyo ardaydu ay aad u jecel yihiin. naanaysadii Yunis uu lahaa haddii aan hal iyo laba ka soo qaado waxaa kamid ah naanaysta ugu horeysa oo Yunis caan ku yahay ciyaalka xaafadan ay aad ugu jireen waa Yunis Muluda, halka Yunis Raja dadka qaarkiina ay dhihi jireen. sidoo kale Yunis waxaa la dhihi jiray Yunis Yonka, waa magaciisa marka la soo gaabiyay. aniga ahaan Yunis waxaan isbarnay waagii uu degmada Daynile ee gobolka Banaadir deganaa oo waqtiga uu ahaa Yunis da'diisu mid aad u yar. ha yeeshee Yunis markii uu iskuulka bilaabay Yunis markuu iskuulka bilaabay oo uu noqday dugsiga sare ayaan kula soo biiray dugsiga Soomaaliya. fasalka koobaad ee dugsiga sare ayaan iskala bilaabnay Yunis iskuulka Soomaaliya ilaa iyo fasalka form 4 ayaan isla dhameynay. kadib hal jaamacad ayaan ku wada biirnay. ha yeeshee Yunis jaamacaddii waa uu ka tagay oo wadanka waa uu ka dhoofay. ana jaamacaddii waan ka baxay oo mid kale ayaan galay. taariikh nololeedka Yunis ma ahan mid halkaan lagu soo koobi karo. ha yeeshee Yunis hadda waxa uu ka fikirayaa si uu saameyn xoogan ugu sameyn lahaa dunidan aan ku noolnahay. Yunis waxa uu rajo ka leeyahay nolosha waxyaabo aad u badan. waxa uu jecel yahay inuu noqdo qof dadka ay wada jecel yihiin misana moodaliista ah, dharkana xayeysiiya. hadda wuxuu isticmaalaa aaladaha social media sida Facebook. aaladda waayahan dambe aad dhalinyarada ay ugu farabateen ee la yiraahdo TikTok. sidoo kale waxa uu Yunis isticmaalaa Imo, WhatsApp iyo Twitter. Yunis Mahad Maxamed halkaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa. anigoo Maxamed Nareed Daawo ah ayaa taganaya taariikhda saaxiibkii Yunis Mahad ودي أيالي هيبدي حنالي هو شرح علي وقال هل علي وقشي حشود لي ودي أيالي هيبدي حنالي